كأننا واد ذلك أنا كنا واد ذلك إن شاء الله بإذن الله قرت وحنا إذا كوب بشارينا بلنقات كوالكيس أنا وقبل أن بحيا قبل وديان ciyaartooy Maxamed Saqraawi oo u dheelay xulka gobolka Galmudug ayaa xildhibaanad ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya ugu deeqday in ay sii doonto gabadheeda. Sidoo kale Maxamed Saqraawi ayaa ka codsatay haddii uu diyaar yahay inuu guursado gabadheeda ay ka bixin doonto sidoo kale guur iyo gaadhiba ay sii doonto. Haddaba sidoo kale Canab Cusuble oo runtii ku dheeraatay hadal ay mar ka jeedinaysa meel fagaara ayaa ku sheegtay in ay waxay bixisatay wax aad u fiican qoys Soomaaliyeedna lagu dhisayo laguna dhiirigelinayo wiilka hamiga sare ka leh inuu kubadda cagta uga ciyaaro Soomaaliya taasoo Maxamed Saqraawi uu ka sheegay mar uu BBC-da laga wareysanayo yahay hamigiisa koowaad yahay inuu Soomaaliya guul u soo hoyn doono isagoo la filayo sanadada soo socda in uu dheeli doono xulka Soomaaliya halkiisa markii hore uga dheeli jiray xulka Puntland kadib markii ay ka caarisay runtii uu halkaa kala kulmay cadaalad darro halkaasna uu kaga soo wareegay xulkiisa uu u soo wareegay markii dambe xulka gobolka Galmudug sidaas darteedna uu ku reebay xulkiisii hore ee Puntland taasoo reer Puntland maanta dhan u cadhaysan yihiin isla taxadiradii ugu dambeeyayna uu raaligelin ka bixiyay. Haddaba xaqiiqada dhabta ee taagan ayaa waxa ah sawirkan lagu faafinaya baraha bulshada maxaa ka jira Maxamed Saqraawi iyo xaaskiisa cusubba laakiinse iyada intaan Maxamed Saqraawi hadlin ayay sidoo kale iyada ku faafisay muuqaal bar ay Facebook ee ku leedahay sidoo kale wariyaal aad u caan ah ayaa soo dhigay muuqaalka ay gabadhan kaga hadlayso. haddii aan kilibkan ku daro waa kan Ebel Daawo haddaan ka soo noqono kilibkaas Maxamed Saqraawi ayaa ka hadlaysay gabadhiisa la siiyay taasoo ku faraxsan in uu aroosi doono maalmaha soo socda arooskoodana ka dhici doona magaalada ugu dhow taasoo ka ah Galmudug caasimadiisa koowaad. Haddaba dadka ku buuqsan caasimadda Galmudug ayaa laga dhigi doonaa mise wax lagu rari doonaa xaggaas iyo xamar si aroos cajiib ah loogu dhigo. haddaba halkan waxaa kaa xasuusinaa in haddaad ku cusubto channelka xogmeynta warka subscribe ku samayso like na saarso muuqaalkan sii gaaro dad badan oo ka mid ah asxaabteena waad ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga.